iska taqaanaa atriishadii caanka ka ahayd aalada TikTok balse hadda liinta ku cabaysa xarunta ka tasho ama Soomaalidu u garanayaan dhaqan celinta anshax ma lahayn waxay rabtaa iska sheegi jirtay mararka qaar muuqaal anshax xuma ayaa laga baahiyay cid kalena ma ahan gabadha aan ka hadlayno laakiin waa gabadha anshax xumada ku soo caan baxday muuqaaladeedana lagu baahiyay aaladaha kala duwan sida Telegramka Ifraax Maafiyo si aad u daawato warbixinteena muuqaalkan leeg saar u share garee saaxiibada sidoo kalena saaxiib nagula noqo barteena Facebook ee Cabdicays Xali oo folowde Ifraax Maafiyo waa gabar daayar oo caan ka ah aalada TikTok soo bandhigi jirtay qoobka ciyaar waali ah balse hadda waxa ay ka dhaxadlaysaa xarunta ka tasho oo ay geeyeen waalidiinteeda kadib markii muuqaalo anshax darro ah ay ku soo gudbisay aaladaasi Ifraax sababta ugu weyn ee loo geeyay xarunta ka tasho ayaa ah in muuqaal laga baahiyay aalada TikTok cidda muuqaalkaas aragtay kaliya ayaa ka sheekeyn kartee Ifraax dhig jalaq uma siin waalidiinteedana cadeymo ayay ku raadinayeen intaasi balse ugu dambeyn waa lagu helay cadeyntii la raadinayay kadib wiilal 3 ah markii muuqaal ay la soo bandhigtay ay ku sheegaysa inay wixii doonaan u sameynayso laakiin mobile iPhone ay siiyaan sidoo kalena lagu arkay muuqaal gaari cad ay la saaran tahay wiilal sidoo kalena gabdho kale ay la socdaan oo ay ku niikanayaan gaarida dhexdiisa waxa laga duubay muuqaal qarsoodi ah Ifraax ayaa hadda ku jirta xarunta ka tasho gaar ahaan xarunta Fawzur Raxmaan ee degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir haddaba adigu sidee u aragtaa in ka tasho la geeyo Ifraax Maafiyo oo ahayd gabar dhaqan xumada saaxiib u ahayd aragtidaada qaybta hoose ee commentiga waa ay ku furan tahay oo waad nala wadaagi kartaa mahadsanid meesha u jeedaan meesha magaceeda manil baraayo annagu ay kana way jeediyay markii dadka dhahay Ifraax Maafiyo ma karto Balqiis war Ifraax Maafiyo Balqiis ayada leeyahay Balqiis kaliyeed ma leh xamar ayada iskale ayadaan ku raaxaysis abti inta aan naftas u jirto qof bilaadan ka baqay ma leh marka habraha oo xaleelahay oo masarka inta buuqis way bukaan hala toogto ayaa filaa أيامها ورك تشيفي الدبيبها ليلة أبي أودي إذا ضعيفتي إنتاني في ليجواي أدرت سيكون إحباك ولن كلبدينا إكو حولنا كلا بيتنا مكحاكو فين مانتا علمك وسلين مانتا